بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan jeclahay halkan inaan duruus aan ku duubo ku saabsan barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye oo aan kaga bilowno qaybtiisa dhaqaalaha oo dhowr xubnood ah. waxaan maanta aan jeclahay inaan ka baaraan dego oon tafaasiil ka baxsho qodobka koowaad oo odhanaya la dagaalanka saboolnimada. intaan barnaamijka u gelin waxaan jeclahay inaan wax yar ka tilmaamo barnaamij siyaasadeedka guud ahaan siduu u yimi iyo cidda leh. barnaamijku wuxuu ka turjumayaa waxa weeye himilada, hiigsiga iyo maxaan ku yidhaahdaa visionka ay leeyihiin labada murashaxa madaxweynaha mudane muuse biixi iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane cabdiraxmaan saylid. barnaamijkoodii fikirkoodii oo iyadoo laga duulayo ayaa dad weynaha laga soo ururiyay afkaar waxa weeyana wax bulshadoo dhan ay qayb ka qaadatay. ururinteedana dee dad ay ururiyeen laakiin cidda lahaanshaheeda lahayd aan cid labaad lahayn ee barnaamij ay leeyihiin murashaxiinta xisbiga kulmiye. iyaga ayaa leh, iyaga hirgelintooda waajib isku saaray, iyaga mas'uuliyadooda leh, iyaga la xisaabtooda leh. marka howlwadeennadu waxay u qabteen iyaga way hawl yareeyeen, laakiin lahaanshaha barnaamijka cidda lahayd waa labada murashax oo waa fishinkoodii afkaartoodii ay yidhaahdeen ummadda haddiina doorataan ummad yahay waxaasaanu qaban doonaa, howlahaasaanu hirgelin doonaa. haddaba qodobka la dagaalanka saboolnimada haddii aan hoos ugu daadegno sideed ula dagaalamaysaa saboolnimo. waxa weye dad danyaraa jira. dadkaa danyarta ah in la bari taaro oo la caawiyo oo la kaaliyo ayaa loo baahan yahay. waxaad ku kaalanaysaa waa laba shay. shaqa marka la shaqaale la qoranayo in hoos loo eego oo la tixgeliyo dadka saboolka ah inay shaqooyin helaan oo priority la siiyo. oo marka tartanku yimaado qoyskii danyarta ahaa cala aqal qof iyo laba qof ay shaqa u helaan, shaqaalaha dowladana priority laga siiyo. talabaad waxay noqonaysaa dadkii ganacsata yarar ay doonayaan inay samaystaan laakiin capital iyo raasamaal u baahan in hay-ad loo abuuro, hay-adaasi ay maalgeliso oo wax yar ay ku dhaqdhaqaaqaan ay samayso, lana dhiirigeliya khaasatan abuuridda wax la yidhaahdo iskaashatooyin, sharkado yaryar oo kooban 10 qof 20 qof ka kooban. intaasaa wax keenaysa oo qof waliba dee xooggiina ay qaybsadaan, raasamaalka yaraana isku darsadaan, guidelines loo sameeyo, la tababaro loo furo, aqoontooda kor loo qaado, lagu ilaaliyo ganacsigooda, loo sameeyo sharciyo ay ku xisaabtamaan. ayay noqonaysaa inay hay-addaasi noqoto hay-addii warbixinna siinaysay, ilaalinaysayna si aanay ganacsigoodaasi khasaaro ugu dhicin. waxaa kale oo meesha soo gelaysaa waxa weeye arrimaha had iyo jeer noloshooda taabanaya oo ay ka mid tahay sicirkan doolarka iyo shilinka somaliland kala tegay, iyagoo dadka ugu badan ay isticmaala shilinka somaliland in shilinkii la qiimihiisa la soo celiyo oo kor loo qaado si lacagtii ay ku iibsan jireen shilinku ay u noqoto shaygii maxaan ku ilaahay siisanayeen shalayto maxaan ku ilaahay 10 doolar lagu sarifayay. markuu doolarku hoos u dhacayna badeecadana dibadda ka wada timaadaa ay jabto oo jubniinka ay jabtay lacagtii ay siisan jireen shayga 10 doolar oo 8 doolar hoos ugu dhaco. marka waxay tahay dakhligoodii baa kor u kacaya, si dadban buu kor ugu kacaya marka sicir bararka la dagaalamo. waxa kaloo ka mid ah cashuurteena had iyo jeer waxay saaran tahay cashuur badeecadaha saaran weyn. badeecaduna inta badan culays waxay ku hayaan dadka danyarta ah oo ninkii maalqabeenka ahaa dee raashinka cashuurta saartay isku midka ah waxa la waxay yeelaysaa ma jirto. laakiin ninkii danyarta ah dakhligiisa waxa laga yaabaa inuu 89% haddayna 100% ahayn ay raashin ku baxdo. laakiin taa marka la aynu jabino dakhliga waa in meel kale ka yimaada, waa inuu ka yimaadaa waxaan la yidhaha macaashka. ninkii maalqabeenka ah wixii uu macaashay inaan ummadda dhexdeeda ka macaashay inuu bixiyo profit tax oo cashuurta indirect taxka ee culayska ku haysa danyarta aynu hoos u dhigno. taa kalena ururinteeda kor loo qaado, maaha in la kordhiyo, laakiin ururinteeda ayaa yar oo waxa yareeyeen waxa weeye aqoonta dadka cashuurta ka shaqeeya iyo habka systemkii loo dhigi lahaa oon taabagelin
laakiin system ka hirgelino oo kor aynu u qaadno maxaan ku raacay cashuuraha tooska cashuuraha tooska waxa loo yaqaan progressive tax ama cashuuraha in horumarsan ama cashuuraha cadaalad ku dhisan cashuurahan kalena waa cashuuraha culayska ay ku dhisan tahay ay tahay burden tax burdenka ama culayska ama damqashadu yahay mid saaran qofku ka Italiya yahay waa cashuurta dadban taa tooska haysa si cadaalad ay u qaybinaysaa qof walba dakhligiisa ayay eegaysaa oo xisaabinaysaa taasi ayaa iyaduna wax tari doonta markaas ay badeecada ay cashuurta indirectka ay hoos u dhacdo waxa kale ay keenaysaa marka uu cashuur ururinta profit kaska kor u qaado inay dawladdu lacag hesho ay ku kabi karto sanduuqa ay musaboolka kula dagaalamayo fikir kale jira oo kullay anigu aan qabo oo marun la hirgelin doono buugana kuma qoraa laakiin waxa weeye waa fikradii la isla soo qaaday aniguna shakhsiyan aan qadimay oo sanduuq la sameeyo sanduuqaasi oo dadka walba joogi lacag ay ku soo shubaan oo walaaladooda ku taageerayaan danyarta xukuumaduna shilinkii walba joog soo dhigaba shilin u dhigma ay bixiso shilin saddexaadna aan ka doono tujaarta waaweyn iyo waddankeena gudihiisa ay tabarar ku soo bixinaysa marka haddii aynu helo 1 milyan lacagtu inoo gaadho milyan xukuumadda iyo milyan qabliga gudihiisa waxay noqonaysaa wax tar weyn oo dadka danyarta wax tarta caalamkana aan uga doono markaynu fikradda la nimaadno aan qabo 100% inaynu ka heli doono taageero buuxda oo inta ay ka badanba aan caalamka ka heli doono mid baad is kale ku soo daray la dagaalankaasi wuxuu noqonayaa saboolnimada in dadka tujaarteena ay fikirkoodii abuurista shirkado ay iyagu iskaan qabtaan oo shirkadaha markay abuuraan de shares baa la sameynaya shareskaasi dad badan oo ku joogo 10 kulna oo 20 kulna oo 100 kulada kala qaybgeliya iyaguna waxa uu soo harisay raasamaal ninkii milyaneerka ah xoolaha tujaarteena kuwa ugu waaweyn lacagta marka ay release gareeyaan shareska markay bixiyaan ay helaan ay mashruuc kale ku furaan oo midba mid ay ka sii kordhaan dakhligooda oo sii kordho magacooda oo sii kordho walaaladii iyo dadkii waddankoodii ehelgoodii ay shaqo u abuuraan oo kor u socdaan kii ku xigeen oo kor u kaco kii u hooseeyay dabaqaduna kor u soo kaco qof yaa u salaanka u qabsado taasi oo ay tahay aqoonta ganacsigeena inaynu jihayno oo guidelines la sameeyo oo la dagaalamo monopoly inay magaranaysaa Mareykanka antitrust bay yiraahdaan agency inay la sameeyo taasi oo suuqa horta ilaalisa oo aan suuq xor markuu yahay de competition baa jiro tartan baa jiro oo waxa la yiraahdaa efficiency ay manaya oo qof walba wuxuu ku dadaalayaa inuu kharashkana yareeyo macaashkana badiyo taasi waxay keenaysaa productivity-ga shirkadaha iyo waxa la soo saarayaa wax soo saarku inuu noqdo wax soo saar kharashkiisu kooban yahay macaashkiisu badan yahay laakiin haddii monopoly ku dhacdo dhowr qof ay gacanta ku dhigaan suuqa waa wax doonaan bay ku iibinayaan daruuri ma aha inay koska dhimaan waayo qasab ay ku tahay dadkii suuqa iyaga haysta taasina suuq waxa weeye tudistorkeenu cadeynayo in suuqa horta ay dawladdu ilaaliso taasi ayaa lafteedu si dadban danyarta wax u taraysa barnaamijka maanta waxaan ku soo koobiyaa inta haddii ilaahay idmo derska labaad aynu ku wadi doonaa sida uu qoran yahay buugga siyaasadeedka xisbiga kulmiye qaybtiisa dhaqaalaha ilaa ders labaad waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.